xasan sheekh maanta waxaa laga rabaa inuu mas'uuliyadda cid kala dusha ka saaro taliyaha ciidanka taliyaha gaashaandhigga inuu shaqo weyn ka qabto wasiirka gaashaandhigga inuu shaqo xilka ka qaado ra'iisul wasaare xamse inuu iscasilo taliyaha ciidamada lugta in la soo xiro runtii in la soo xiro iyo taliyaasha kale ee ku lug lahay lacagta ka sameynayay maanta xabsi leeyihiin xasan haduu intaas sameeyay laanta kor waxaan ka hadalnay markii ciidanku coos weyn ku soo jabeen ciidanku tabashay qabeen ciidanku kor aadamay ciidankii ka soo baxay galcad ciidanka soo baxay budbud ciidanka ka soo baxay eeldheer ciidamada soo baxay dagaalku ma soo bixin cabasho iyo tabashay ku soo baxeen madaxweynaha Soomaaliya markuu u tagay wuu hanjabay marka uu ka hortagay ciidanka meel la soo keenay waan la xisaabtamaynaa ragii furmaha ka soo baxay yuri fiiri waxa ku tusay zero fahm inuu ka yahay waxa ciidan lagu dhaqmo marka waxa laga rabaa maanta inuu la xisaabtamo yiraahdo ciidanka Soomaaliya ragii loogay ragga ciidanka dhimashadooda ka shaqeeyay ragga ciidanka Soomaaliyeed jabkooda ka shaqeeyay why they will pay the price why taas waa inuu wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada lugta taliye hebel xabsi ma aha tashaqad xabsi markay galaan oo lala xisaabtamo oo qaarkood dambiyad dusha laga saaro ciidanku waxay leeyihiin okay waraa madaxweynaha xogta dhabta ma aysan gaarin maantay gaartay ficilkiisii reactionkiina saanu noqday markaas waxaan is leeyahay hididiile iyo hammi ayaa soo noolaan kara oo kalsooni ciidanka u soo celin kara haddii saan ku sii socoto oo wasiir gaashaandhig wasiir iska sii ahaado oo xamse ra'iisul wasaare iska ahaado oo taliye ciidamada lugta iska baashaan hadda waxa la sheegay taliye Khalid shalay inuu airportka baashal waxaas ma dhacayeen shalay wallahi nina wuxuu ugu yiri shalay waxaan ku soo arkay isagoo yani boqor camal loo ilaalinayo oo soo xashaashay dad aragta asleeda ninkaanu wuxuu ka taliya adduunka ugu nabad badan hadii marka saas ku sii socdaan wadan iyo dawlad iyo ciidan iyo waxaan ka hadalnaa meesha dhawaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu magacaabay general Odowa wuxuu magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa laga maarmi waayay dadku leeyihiin ma badbaadin doonaa sumcadda iyo dhismaha ciidamada qalabka sida wax un dabaqabad ma sameyn karaa kula tahay ma joogo waqtigeedii waxba ma qaban karaa sida waxa dhacay yani wax waa dhibi kara laakiin wax ma qaban karo wax ma qaban karo markaan kula yani wax qaban kara aad u yiriina ka wada waddankan xasan sheekh oo taliya xasan sheekh waxa xogta aan hayo aaminsanay run tahay oo ila kala doonaan ka helay wax weyn Odowa inuu diiday ciidankan Kaambooni la geenay inuu ku dhareys Kaambooni ciidanka in la geeyo sax ma madaxweyne taladeeda ma madaxweynuhu ku yiri qorshahan waa ka horeeyay ee shaqadaada kala qabso ma fahmaysaa لأنه قرشان هذا وحاودي أنت بدن يعني من أجادين هو رئيس وزراء يتيم كيس إيو قل حمسة أحمد ولد الرسناي أنا بس بهيستي عوض مقطع السجوا حلو تقال كان تقال قرشة كلاويان أديك كومية له ده هذا كلا قبصه وديدي إن فاكتي رالنا كم وصلنا هين وحلا جاي من قطرت أركي حدي مركب مدحوينه وصلوا دافين تليه عيدا كانوا قرشيه يقع عمد عيدا كقاته إن معناه سو كردنا ملها تليه haddii laakiin loo gacan baneeyo wuxuu khibradu u baahan yahay iyo khibradu u baahan yahay iyo awooduhu u baahan yahay lagu kaalmeeyo laakiin asaga loo gacan baneeyo waxa laga yaabaa inuu wax bedelin karo laakiin haddii gacanta lagu la dhagan yahay fahamka madaxweynaha oo soo sheegay meeshu ciidan iyo abni ka joog barnaamij hadda ka hor sameeyay waxaan ku sheegay in madaxa inay jirto aan kala aqoonin asluubta iyo intelligence aysan farqi u lahayn madaxweynaha sheekh madaxaas ka mid yahay abniga iyo kalama yaqaan sirdoonka intelligence-ga iyo umaleema maxaad inay macno weyn ugu filan asluubta marka ninka sidaas fahamkiisa amni iyo ciidan oo yahay haduu gacanta kula dhagan yahay taliya wax weyn noqon kara miscalculation ay leeyihiin dadka miscalculation badan ayaa jiro oo ay dawladda sameysay ko waxa ka ahaa in halkaan ay sidaad sheegtaba ay ahayd jasiirad isla markaana ay adkaan doonto in Axmed Madoobe uu dagaal ku soo qaaday isagoo hub adag adeegsanaya dadku waxay sidoo kale su'aal gelinayaan halkee laga keenay halkee la soo marsiyo hubkan ay adeegsadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo ciidamada sirdoonka Jubbaland miscalculation dawladda ay sameysay ee ku aadana hubka ay adeegsan karaan iyo tirada ciidamada Jubbaland bal isagu laftirkooda maxaan ku qiimeyn karnaa waxaan isleeyahay horta sirdoonka ciidanka iyo dawladda Soomaaliya ayaa laga rabay inay ogaadaan Jubbaland waxa ay la imaan karto yani hadda Jubbaland cadow waa loola dirirayay Soomaaliya cadowgaad inaad ogtahay waxa uu haysto aad muhiim u tahay iyo meesha ka imaan karo aniga runtii waan la yaabay kadisna waa ugu noqotay ciidan ka yimid Kismaayo inay soo gaaraan meesha la yiraahdo Kaambooni oo dhulka ku yimaadeen ma ana filanayni وإلى هذا I cannot comprehend
يعني ما فهم saxa kama helin karo qaabka keeni kara meeshay soo mareen laamno waxleeyahay hadii ciidankaas Jubbaland ay ilaa Ras Kamboni ma karaan shabaab ma joogin dhulkaas waxa fududeeyay iyo sidii ku dhacday waa wax baaris u baahan waa su'aal saxa oo tayn la isweydiiyo sidii ku dhacday iyo meeshay soo mareen iyo qaabkay u dhaceen annaga waxaan ognahay kuwaan hadda dawladda Soomaaliya inay diyaarada ku yimideen meesha ciidankii habeenkii koowaad habeenkii labaad weerarka ku soo qaado Jubbaland ka yimid Kismaayo dooma ku yimideen marka in ciidan dhulku ay ku yimaadeen ilaa Ras Kamboni soo gaaraan hadday awoodaan leeyihiin maxay hadda kor u sameyn waayeen maxaa hadda u sahlay maxaa u fududeeyay sidee ku dhacday waxa soo dhan waa su'aalo u baahan in la isweydiiyaan islay